magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugna bulshada ku dhaqani waxa ay maanta sameeyeen barnaamij isxilqaan ah oo ay magaaladaasi ka sameeyeen iyadoo ujeedku uu yahay in ay soo celiyaan bilicda magaaladaasi. Cabdisaaq Maxamed Axmed ayaa warka ka soo diray gaalkacyo. mashruucan oo qaybka qorshaha dib u soo celinta bilicda magaalada gaalkacyo iyo wax ka qabashada nadaafad xumi ka jirta qaybo kamid ah xaafadaha magaalada ayaa maamulka dawladda hoose ee degmada gaalkacyo ee Galmudug oo kaashanaya qaybaha bulshada waxa ay maanta ka sameeyeen olole nadaafadeed xaafado kamid ah afarta xaafadood ee gaalkacyo kuwaas oo soo buux dhaafiyeen qashin fara badan kaas oo maamulku sheegay in ay sababi karo inay ka dhashaan cudurrada faafa duqa degmada gaalkacyo ee dawlad goboleedka Galmudug Xirsi Yuusuf Barre oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay ololaha nadaafadeed iyo sidoo kale mashaariic horumarineed oo uu tilmaamay inay dhawaan ka bilaaban doonaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. waxaan ka soo qayb galnay ololihii nadaafadda oo bariyahan ka socday magaalada 17kii bisha la bilaabay xaafadaha magaalada intooda badan waa la soo maray wayna soconaysaa ilaa iyo 10 bari hadda ka bacdi hadii la idmo waxaan ku gubaabinaynaa dadka xaafadaha inay qashinka banaanka soo dhigaan ay la shaqeeyaan nadaafadda ka shaqeynaya magaaladu nadaafad bay u baahan tahay waxaan ku boorinaynaa inay kaalintooda ka qaataan madaxda xaafadaha laamaha iyo qoysasku intuba inay ka qaataan waxaan rabaa waxa nagala qayb qaadatay oo gacan naga siisay qayb kamid ah shaqada la hayo hay'adda Mercy Corp waan uga mahad celinaynaa mashaariic badan baa ka socota magaalada sooladii baa la bilaabayaa 3 wado laami laga dhigayaa jirta saldhigii booliska sidoo kale waa la dhisayaa waxaan rabnaa horumarin badan baa socota garoonkii kubadda cagta asna waa lagu bilaabayaa dib u habeyntii marka dadka magaalada waxaan leeyahay qaybtiina ka qaata u dhaweeya mashaariicda haddii qof waliba yiraahdo haddaanan aniga danteeda khaaska ka helin socon mayso wax noo shaqeynaya ma jiraan ololaha nadaafadeed ayaa kuwa si toos ah u socon doona toddobaadyada soo socda iyadoo looga gol leeyahay ilaalinta fayadhowrka iyo caafimaadka bulshada. Cabdisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo.